walaalka xumaan kuu geysto dhurwaaga xumaantiisa waxa ooga daran xumaanta oo walaalkaa kuu geystay sjrtku inuu xadan dhahay dhegeystay waan ogahay caayda meesha nacimo uu ku gabadhan oo social media caanka ah oo ina ay shanta Soomaaliba u dhaxayso u soo gashay oo loo yaqaan Nacimo Joker oo inan jilaaya oo jilinkeeda adduunyada laga jeceliyo ayaa maanta waxa iskugu soo urursay in sharafteedii iyo sumcaddii ay lahay TikTok ka dhex sheegayso shargalaya waxa soo sameeyay waxa wixii munaafiqnimo wixii been wixii وشرقري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي الغالية دلهانتين ملك استوديو كاكا جوجتا واحد لين هاي سوري وهذا مقالك نوع لي قرية وشير قرية لو ذاك أصحابتنا فكر يا أركتي وشاد كقبطان مقالك كان إسلام مركز حق وصلنا قريبا رمضان كريم بعد لين هاي ما شاء الله runtii waxaan idin ka mahadcelinayaa qaabka quruxda badan ee aad noola socotaan iyo qaabka quruxda badan ee aad noo dhiirigelisaan fikrada iyo aragtiyaha kala gedisan ee xaq hoose markaas nagu la wadaagtaan aad baan idin ka mahadcelinayaa mahadcelintuna maaha mid aan ka daalayno boqolkiiba boqol waxa qurux badan qofka bini'aadanka haddii uu abaal ku galo abaalkiisa haddii aanad gudi karayn inaad mahadcelinta u badisaa aad bay muhiim u tahay kelmadda waad mahadsan tahay iyo kelmadda labadaas raali ah labadaas walba kelmadood oo aad iyo aad qaali ah qofka hadii aad ku gafto oo tiraahdo raali ah iyo hadii uu wax ku sameeyo ku tiraahdo mahadsan tahay labadaas kelmadood waa laba kelmadood aad iyo aad qofka qulubtiisa iyo yaani jismiyan ba aad kasban karto labadaas kelmadood markaas idinku la dardaaraya inaad arabkiina ku badisaan war aad baan mahadsantiin dabcan muuqaalkaygu wuxuu daaran yahay maanta in badan kamaan hadal Nacimo Joker ilka casaqays iyo Daahir Calisow maraba muuqaal ay leeyihiin aan soo qaato inta yar ee hordhac ah ee aan soo qaatay mooyee laakiin ma jeclay muuqaal kale oo ay leeyihiin saddexdan qof midkoodna inaan soo qaato iyagoo iscaayaya iyagoo isaflagaadeynaya iyagoo oo ilaahayba iyagoo dhaqanadii ugu xumaa ama caaydi ugu xumeed qof Soomaali ku hadla isku caayaya ay wuxuu waxa ka buuxaan social media hadii TikTok noqoto hadii ay Facebook noqoto iyo hadii ay YouTube noqoto iyo hadii meel kale oo social media kamid ah ay noqotaba saddexdan qof waxa barihi ugu dambeysay ay koota ugu xidhan aalada social media especially aalada YouTube ayay saddexdan qofi koota ugu xidhan mar ay iscaayaan mar ay saflagaadiyaan mar ay intay baraha bulshada si live u soo fariistaan wax walba iska sheegan horta wada dhacamad oo kala sareeyaan baa loo kala quraa Daahir Calisow iyo waxaan la hadlayaa anigu ilka casaqays Nacimo Joker lama hadlay sabab aanan ula hadlayn ba meesha taala qof dumar ahna waxaan ku ognahay in fudaydku uu ka tan badan karo hadii laba jeer la caayo ama la aflagaadeeyo oo niragi aflagaadeeyo dulqaadku dumarka hore uga dhamaada inay caytanto inay aflagaadooto inay wax walba ku hadasho xaq bay u leedahay iyadu laakiinse Daahir Calisow iyo ilka casaqays oo ah Nacimo Joker odageeda labadan nin ba hadalkayga ugu badan iyo canaanta ugu badan ee aan maanta wada ku dhacaysa hadii aad adigu fikirka aan qaba aad ila qabto oo aad leedahay isku fikir baynahay xagga hoose igula wada commentiga iguna dhiirigeli yaani commentiga waxa tiraahdaa sax baa tahay hadii ifan fikirkayga iyo sidan u hadlaya ay khalad hayna markaasi xagga hoose igu reeb laba gooraala waad mahadsan tahay طبعا سين ودا ogsoonahay saadaasha social media ama runtii hadalhaynta social media saddexdan qof ayaa ugu badan mar walba dadka YouTuberska ah saddexdan qof bay si qeyr macquul uga hadlaan anigu rabadaan soo gashay kamaan hadal saddexdan qof midkoodna kamaan hadal YouTube-kayga dib waad gali kartaa furiyeeda waad soo baari kartaa inta rabadaan socotay saddexdan qof ee ay xaaladoodu halkan maraysay oo maalintii koobaad ee aan ka hadlo hada waa rabadaan gudaheed laakiin rabadaan horteed waan ka hadlay Soomaaliga hadalku weyn dhacay hadaba sababtan uga hadli waayay waxa tahay maadaama ay bil rabadaan tahay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ina uumay ka xishoon waayeen bila aadanka ay ka xishoon waayeen saddexda qof inaynu inaga ahaan ama aryara team aryara ahaan ayna shaqo iyo shaqo ku darsan كلين all of you now كله فبدن waayo qofku hadii sharaftiisa iyo cirdigiisa uu u xishoon waayo oo isagu uu doono in wax laga sheego qofkaasi isagiiba midida isku wato oo isbireynaya Nacimo Joker sidii wada ogsoonahay
ninka daahir cali suule ilaaha aad iyo aad ugu dheereeya oo cay iyo aflagaado iyo tacaddi ayuu ku haya sidii wada ogsoonahay barihii ugu dambeysay waxay soo baxaysay in daahir cali suul iyo ilka casaqays ay kulmi rabaan oo ay dhexdooda dagaal mari rabo laakiin been iyo propaganda weeye ninka kaliyaata ee ogol xaaskiisa inuu fiidiyo ku raadsado isagoo la caayay waa ilka casaqays sidaan anigu aaminsanahay sababta oo ah nina naagtiisa ma oga in lagu tilmaamo dhaqana aad iyo aad u lidnimo ama aad iyo aad u xun nin baa naagtiisa lagu tilmaami lahaa ilaahay baa ku dhaarshay gabadhaadu waa gabadha ha waxay ka mid tahay filmaanta dhaqan xumada ay matasha ma nin raga ayaa ogolaan lahaa oo nin rag ah uu leeyahay gabadhaada waxaa samaysa anigu tiirka goor aan goostay oo aan halka xabadka ka dhuftay isma baan ogaaday laakiin halka aniga waxa iga soo cadaatay walaa daahir cali suul walaa Naciima Joker walaa ilka casaqays in ay udgoon leeyihiin fiyuuga iyo hadalhaynta baraha bulshada iyaga laga hadalhayo sidaan anigu aaminsanahay sabab baa meesha taala sababta oo ah horta haddii aynu Soomaali lahay dhaqan iyo caada aynu leenahay inaan in la caayo waa inaga madnuuc waa waxyaalaha inaga reeban ee dhaqankeena iyo diinteena ba inaga reebtay diinteena iyo dhaqankeena boqolkiiba 95 way iswaafaqsan yihiin in yar marka laga reebo mooyee haddaba ninka maanta ogol in xaaskiisa nin ragay wuxuu doono ku tilmaamo iraado joogto culus iraado filmaanta ashraxmada ay matasha oo waliba Facebook live iyo YouTube live intuu soo fadhiista halka ka sheegaya isaguna intuu u soo jawaabo sidii dumarka ula tirsanaya ilaahay baan idinku dhaarshay ragga maxaan ku tilmaami karnaa runta aynu isku sheegno dad waaweyn baynahay inagu intaynu qabiilka ka tagno aynu dhaxaad ka noqona aragga kan Naciima Joker waxaan leeyahay haddii aad sharaftaada iyo milgahaaga adigu aad rabto fiidiyoyo daahir cali suul leeyahay ha soo duuban hana u soo jawaab ninkii iska hadlaya ha iska hadlo laakiin inan baa tahay hadalhaynta maanta lagu hadalhaya raad iyo saameyn bay naftaada ku yeelanaysaa haddii aad garan weydo maanta waxa jooga barotoola wixii soo socda ma garatid gara maanta in aad sharaftaadii iyo karaamadii aad adigu lahayd inama yareeray ay ka bariisiinayaan oo baraha bulshada intay soo fadhiistaan siday doonaan u galayaan marna video siraan ku haynaa marna muuqaal siraan ku haynaa le bal ilaahay baan idinku dhaarshay shalay ilaa daraad waxa soo baxay in la leeyahay Naciima Joker waxa laga hayaa fiidiyoyo anshaxuma oo meetaleyso haddii maanta anigu aan iraado waxaan helay fiidiyoyadii la sheegay in Naciima Joker baraha bulshada lagu faafinay dadku lahaayeen oo aan halkan soo fadhiisto few one samaystay sumcadeedii meel baan uga dhacay aakhiradeedina waan xumay intaas weeye inaan walaashahay in sumcadeeda xumayso aakhiradaadina adigu aad xumayso kaliya ta in dadku ay ku daawadaan aad labadaaba ka doorbito ilaahay baan ku dhaashay qofkaas ma qof tiraba iyadoo bil rabadaan oo ay dadku sooman yihiin oo ay dadku cibaadeysanayaan oo dadku ilaahi uuntay u toobad keenayaan oo 12 bilood ay soo dhaafay wixii dambi ah ee ka dhacay ay rabaan inay iska yareeyaan oo iska khafiifiyaan haddana dadka maanta u ololeynaya oo u sacabtumaya inay xumaan sameeyaan anu labada nin iyo inantaasan ka koob in la hadal hayo inkaas sabab ah in Naciima Joker la caayo iyada koow ka ah horta sabab iyada midida lagu qalayo gacanteeda ku wadata sababtoo oo every night habeen kasta oo soo gaara ama soo gala uu ilaahay dhaliyo live TikTok ba ku jirta daahir cali suul oo hadaleysa sidee buu ku deyn karaa ninku nin aad maalin walba hadal hayso oo inta live soo gasho oo aad hadal hayso leedahay waxaan oo aad hayso adiga sidee buu u deyn karaa dadkii baxaya dad lagu qabsada haddii aad soo hadasho adigu isaguna view baa u daran oo wuxuu leeyahay halkeeman view ka hela isna uu kugu kala kacsanaya adiguna la ka daalka sharaftaadii waxaad ka doorbiday view iyo followers yar iyo lacag yar oo lagu soo tuuro ubax yar iyo wax yar oo lagu siiyo coins aad sharaftaadii ku iibsatay marka waxaan hablaha Soomaaliyeed uga digaya anigu maanta waydu aragtaan halka ay wax marayaan in social media ku jirta badankeedu kuwa badankooda isticmaala social media ku jira mid iyo laba marka laga reebo mooyo inta kala dhaqankoodi waa halaabay inta TikTok ku jirta ugu daran baba dhaqankoodi waa halaabay gabadhan oo social media caanka ah oo ina ay shanta Soomaaliba u dhaxayso u soo gashay oo loo yaqaan Naciima Joker oo inan filaaya oo jilinkeeda adduun weynaha laga jecel yahay
ayaa maanta waxa iskugu soo urursay in sharafteedii iyo sumcaddii ay lahayd TikTok kaga dhex sheegayso ilaahay baa ku dhex sheegay ma dib baa loo socdaa mise horaa loo socdaa marka anigu waxa weeyaan dib baa loo socdaa graafku hoos buu jeedaa marka waxaan leeyahay Nicmo Joker iyo Elka Casaqays oo ah ninkeeda waxaad sheegataa inaad tahay boqorka shanta Soomaaliyeed sidee baad ku noqon kartaa boqorka shanta Soomaaliyeed adiga oo xaaskaagii karantiimay waayo u sheegi waayay inay xaaskaaga tahay gurigaaga ku haysan waayo maalin walba adigu qolka hurdada ku jira qolka fadhiga live TikTok soo galayso oo rag caayo si aflagaadeynayso oo aanad oran karin soo ragan raga ku caayaya maaha halka ay joog aniga ka soo xaar saaraya anigana ka soo qabanay intaas oo ka weey boqorka shanta Soomaaliyeed waa sheegta boqorka shanta Soomaaliyeed ma jirta waxa tahay dhuusada Soomaaliyeed aad baad mahadsantiin ma jecla muuqaalkeygana ku dheeraad halkaan maray haddii soo gadhay waxaan ka codsanaya YouTube-ka subscribe aad noo saartaan soo kale muuqaalka aad noo like gareysaan oo aad share gareysaan oo aad la wadaagtaa asxaabtiina fikirkiina iyo aragtidiina isku dayna xaq hoose aad markaas nagu raabtaan waxaan idinkaga tagayaa bil Ramadaan baa lagu jiraa bal aan is caafina cafi iyo musaamax aad baad mahadsantiin guys